waxaan baranaynaa hadda command-ka loo yaqaano move oo loo soo gaabiyo mv ayaan baranaynaa. marka sida caadiga ahayd aynu nidhi markasta waynu samayn karnaa, waynu as manual uga baari karnaa command-ka doonayna mv oo ah command-kaas aynu hadda maanta barana loo yaqaano move. marka man move aan idhi waxay soo baxay move inuu yahay inuu file-kii move garaynayo. si kale haddaan idhaahdo uu rename garaynayaa, magacii buu ka bedelayaa, waanu qaadayaa, waanu bedelayaa sidaas aan hadalka u dhigo. marka labadiiba wuu inoo qabanay. marka move baan baranaynaa. hadda imika halkeen joognaa, waxaan joognaa hadda home directory-gaan joognaa. waxyaabahaas ay noogu samaysan, tusaale ahaan dhanka iyo desktop-ka aan tago, desktop-kan rabnaa inaynu waxaynu arkayna samayno. marka desktop-ka haddaan tagno faylasha haddaan samaynayna bay noogu jira, aynu koobiyeyna bay noogu jira by the way. okay, marka waxaan leenahay sidii caadada ahayd haddaan rabo inaan faylashaa saaro, waxaan leeyahay file 1.txt iyo file 1.cb file 1 1.cb file 1 cb du wada socotaa, labada iga saar oo igu daa xataa laftiisa kan ka saar laftiisa waxa ugu baahan. waxaan rabnaa markaa inaan create gareyno hadda mar labaad file-kaas aynu magac u bixino. tusaale ahaan waxaan leenahay touch, waxaan sameynaynaa file 4.txt ayaan sameynaynaa for example. marka ls haddaan idhaahdo file 4 baa ii samaysma, file 4 waan qaadaya waana rename garaynaya. waxaan leeyahay markaasi command-ka loo yaqaano move baan isticmaalayaa. original file-kii la koobiyeynayo oo file vor loo yaqaano, dabeetana file-ka cusub iyo magaciisa waxaan odhanayaa markaasi waa test, ama aan idhaahdaba file 4 test.txt. marka ls haddaan hadda idhaahdo laba file iguma jiraan, hal file baa igu jira. marka hore waan koobiyeynay, iminka lama koobiyeynayo, file-ka waa la qaaday, magaciina waa laga bedelay. file-ka waan qaadnay, magaciina waan ka bedelay. file-ku muxuu ahaa marka hore inu create garanay, waxaan create garanay file loo yaqaano file 4. file 4 waan qaadnay, waan move garaynay, magaciina waan ka bedelay. marka file 4 buu ahaa, wuxuu noqday file 4, waxaynu bixinay file 4 test.txt ayaanu bixinay. marka waa kaas. marka waa move wuxuu inoo sheegaa markaasi file-kii gebigiisa inaad qaadaysid, aad meel kala geynayso, magac kale inoo bixinaysid. halkii tusaale ahaan intaad desktop-ka timaadid, desktop-kii imika file 4 baa inoo yaala, intaad desktop-ka timaadid file 4-kii test-ka ahaabaa weliba inoo yaala cusbaa. intaad timaadid aad rename ka odhan jirtay, haddaan imika rename idhaahdo waxaan inoo bixinaynaa extension-ka uu kaa ilaalinaya, waayo kaasi looma baahna inaad bedeshid. waxaan idhi markaasi file 6 baa la idhahdaa, waan dhaafay. gudaha haddaan aado markaa dhanka iyo command line-kii waxaan ugu tegayaa markaasi file 6 baan ugu tegi doonaa. file 6 waa kan. marka file 6 saasaan rename ku samayn karaa, laakiin waxaa kaloo samayn karaa inaan idhaahdo command-keenan inaan isticmaalnaan leenahay move file 6 oo hadda ah .txt, waxaanu bixinaynaa file 5.txt ayaanu bixinaynaa ls. imika desktop-ka haddaan tagna markaasi file 5 baa inoo yaala, no more 6.